Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu asxaabta aynu jecelnahay oo kusoo dhawaada janalkeena ka xaroow faqriga hadduu eebba weyne idma maanta waxaan idin wadaa barnaamij kaloo qurux badan taa oo ku saabsan faa'iido caafimaadka uu u leeyahay bini'aadanka flaxseedka ama afkeena soomaaliya seedka lagu yiraahdo qandal. Hadduu eebba weyne noo qadaro maanta waxaan ka hadli doonaa ilaa 9 faa'iido caafimaad oo u leeyahay bini'aadanka. Mirahani flaxseedka wuxuu leeyahay saliid caafimaad ahaan ugu fiican bini'aadanka. Miraha flaxseedka waxaa ku jirta omega 3 oo wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha. Miraha flaxseedka waxaa loo isticmaalaa in la isku caateeyo. Wuxuu ka mid yahay mirooyinka caafimaadka aadka ugu fiican. Miraha flaxseedka waxaa ku jirto fitamiino badan sida vitamin B, vitamin C and vitamin D. Haddaba waxaan soo qaadan doonaa faa'iidooyinka caafimaad oo uu leeyahay. 1. Wuxuu aad ugu fiican yahay infekshanka oo waa uu yareeyaa. Wuxuu kaloo daawo u yahay in uu yareeyo kolestaroolka. Wuxuu kaloo daawo u yahay cudurrada ku dhaca wadnaha. Eebbaha inaga haayee. 4. Wuxuu kor u qaadaa difaaca jirka. 5. Wuxuu kaloo daawo u yahay maskaxda. 6. Wuxuu kaloo daawo u yahay kansarka. 7. Wuxuu kaloo daawo u yahay xanuunada ku dhaca gabdhaha xilliga ay caadada u joogto. 8. Wuxuu kaloo daawo u yahay finanka wajiga ka soo baxa. 9. Wuxuu kaloo daawo u yahay wajiga in uu laablaab yeesho ayuu ka difaacaa wajiga ama uu kadkaduuto iyo jeexminka ku yimaada lugaha cirbahooda. Intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay flaxseedka ama miraha qandarka. Intaa mid leecana ku kulmi doono waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo amaano Allah. Hanaga hilmaamin sheerta, commentiga, subscribe-kaba intaba waxay noo tahay dhiirigelin insha Allah.